kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan. daawadayaal subax walba ayaad ka daawataan TV-ga Shabeelle marka laga reebo subaxnimada Jimcada ah. Barnaamijka Saakay oo Arbaca waxa si wada jira ugu daadinaya anigoo Mahad Maxamed Cabdulle iyo anigoo Nafsi Xuseen Cabdi waxa farsameynaya Maxamed Cabdi. Barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan ayaan daawadayaal gordhow gudagaleena. daawadayaashana telefoonka waxa uga soo qayb qaadan karaan telefoon lambarka shaashada ku qoran. Mahad subax wanaagsan. subax la mid ah Nafiso daawadayaasha waxaan barnaamijkeena ugu soo gudbin doonaa qodobo dhowr ah oo markaasi wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale warbixinadii ugu dambeeyay ee markaasi dalka. daawadayaasha waxayna la falanqeyn karaan hadba qodobkii markaasi soo jiita ee barnaamijka markaasi qayb ka ah. sidoo kale waxayna la wadaagi karaan xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanadooda iyo sidoo kale saakay sida loo si wanaagsan. mar kale daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Soomaaliya. markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal qodobada markaasi barnaamijka hadii aan u hordhacno daawadayaasha waxa barnaamijka markaasi ay ku maqli doonaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay culimada diinka Soomaaliyeed oo uu kala hadlay xaaladda dalka. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi. Ra'iisul Wasaare Roble oo magacaabay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. madaxweyne Farmaajo oo warbaahinta gaarka loo leeyahay ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka. akhbaaraadka caalamka ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona sarkaalka loo haysto dilka George Floyd oo codsaday maxkamadeyn cusub. ergeyga cusub ee Mareykanka uu soo magacaabay Geeska Afrika oo socdaal ku maraya gobolka. daraasadaha ka hadlaya xagga nolosha ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona hurdada maalintii ma looga maarmaa midda habeenka iyo cilmi baaris lagu ogaaday in dadka socodka gaaban ay dhaqso ugu dhiman karaan cudurka COVID-19 oo caalamka saameeyay. aad iyo aad qodobadaas iyo qodobo kale ay daawadayaashana barnaamijka ku daawan doonaan. mahadow daawadayaashana waxay ka aragti dhiiban karaan qodobkii aad u soo jiita hadda barnaamijka markaas qaybka ah. aad iyo aad bal ka waran mahad hurdada maalintii hurdada habeenkii ma looga maarmaa ma looga maarmi karo midda habeenkii waxay muhiim u tahay markaasi maskaxda bini'aadamka laakiin lama dhihi karo midda maalintiina waa hadii aad hurdo waa macna daro dabcan marka aad xilli duhur hurdo aad ka soo kacdo galabtii waxaad dareemaysaa dabcan furfurnaan iyo markaasi nashaad. marka warbixinta ayaa markaasi inoo sharxi doonta iyagoo markaasi qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijka ku soo gudbin doona.
balse warbixinta ugu horeysa barnaamijka ayaan aadi doonaa marka nafisoy aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay culamaa udiinka soomaaliyeed oo uu kala hadlay xaaladda dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxtooyada qaranka kulan afur ah kula qaatay qaar ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka kala duwan ee dib u dhiga dalkeena laga gudbi karo wada shaqeyn buuxda oo yeeshaan shacabka, culamaa udiinka iyo madaxda dowladda. madaxweynaha ayaa culimada ku bogaadiyay doorka wanaagsan ay ka qaataan wacyigelinta iyo toosinta bulshada, dib u heshiisiinta iyo markaasi daminta colaadaha, isagoo uu ku ammaanay kaalinta ay ka qaataan taakuleynta dadka danyarta ah iyo kuwa u nugul masiibooyinka dabiiciga ah. dhankooda culimada ayaa la wadaagay madaxweynaha talooyin ku aadan dowlad dhiska, horumarinta dalka iyo la dagaalanka fikirka markaasi xagjirnimada, iyagoo oo bogaadiyay tillaabooyinka loo qaaday dowlad wanaagga, ilaalinta ammaanada shacabka, xaqiijinta iyo sidoo kale cadaaladda. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa culimada ka codsaday in ay sii xoojiyaan dadaalada ku aadan horumarinta iyo kobaca markaasi wacyigelinta, ayna hormuud u noqdaan xasilinta dalka iyo sidoo kale ka shaqeynta nabadgelyada wadanka. markana haddii aan eegno mahdow madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kula kulmay magaalada Kismaayo saraakiil ciidamada Mareykanka ah ee ka howlgala Jubbaland. kulanka ayaa looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab, iyadoo iskaashi buuxa laga sameynayo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxaa kulankan ku helinayay saraakiil ay ka mid ahaayeen sareeyo guuta Maxamed Cabdi Sheekh, taliyaha guud ee ciidamada maamulka Jubbaland, iyo gaashaanle sare Maxamed Guuleed Xasan, taliye ku-xigeenka ciidamada maamulka Jubbaland. kulankaasina waxa uu ahaa dabcan kulan aad u muhiim ah dhanka iyo amniga deegaanada maamulka Jubbaland looga hadlayay. daawadayaashana ayaan goordhow eegi doonaa barnaamij ka soo qayb qaadanaya sida ay u arkaan iyo qodobka aad u soo jiitay. markan waxaan dib ugu laaban doonaa qaybaha farsamada.
waxaad daawanaysaan daawadayaal barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan qaybihiisii hore ayaan ku gudi jirnaa markana haddii aan eego ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif u magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa lagu bedelay Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo iska diiday xilkaasi markii laga soo wareejiyay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Cabdiwahaab Ugaas ayaa horey u soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka ganacsiga dawladii ku meel gaarka ahayd gaar ahaan xukuumadii Cabdiweli Gaas waxaa daawadayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana iyadoo markaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu soo magacaabay markaasi guddi xaqiiq raadin ah oo markaasi kasoo turuxan bixiya waxyaabihii dhawaan ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa markaasi shabakada warbaahinta Shabeelle ee markaasi wareysi la yeelatay musharax madaxweyne Muriidi Golof horeyna u soo noqday gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaan hor dhignay markaasi su'aalo dhowr ah oo markaasi ku aadan sida markaasi la gudboon xukuumadda iyo sidoo kale guddiga iyo sida howlahaasi ay u wajihi karaan wallahi arin aad iyo aad oo waxa Soomaalida dhan ay ku farxeen noqotay Soomaalida aad iyo aad ay macna u burugsaneed arimahan hadda macna ayaamii wiigi oo hore dhacay laakiin hadda waxaad moodaa inay kasoo qabsanayaan dadkiina ay dib u soo noqonayaan caasimadda caabadiina dadkii ay kusoo noqonayaan waxaad moodaa dadaalada uu wada macna ra-iisul wasaaraha waa arin aad iyo aad oo macna Soomaaliya oo dhan u bogtay dibadda iyo gudaha waa tahay ra-iisul wasaare Roble madaxweynaha waxa uu u igmaday arrimaha doorashooyinka iyo sugidda amniga dabcan waxa uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada ma la isdhihi karaa madaxda maamul goboleedyada walow Jubbaland ay ajiibtay Puntland oo ay ka soo qayb gali karaan kulanka arintan waxa weeye maaragtay arin aad iyo aad oo mudan in maaragtay la soo dhaweeyo waayo marka hore bamaayd waxay in arinta Soomaaliya baa iskale inay isku wadi maadaan geed hoostiisa oo laga wada heshiiyo arrimaha maaragtay qusay arrimaha Soomaaliya dad badan baa yaaba ogoleen bayna Soomaalida kaligooda heshii karto marka aad iyo aad waxaan soo dhaweynaynaa macna arintan hadda dadaalada iyo xukuumadda uu fidiyo iyo isla markiiba ay jawaab ka soo bixiyeen maamulada goboleedka qaarkiisa oo dhamaan iyo maaragtay galmudug Hirshabeelle gobolka Banaadir iyo Jubbaland maxalla koonfur galbeed ma aqaan Puntland inay kasoo jawaabayso waa filayaa bariyaan waa tahay ahaan fikirkaaga ma is leedahay kulankan u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha miro dhal waa uu sameyn karaa oo natiijo waa laga filan karaa kulankaas runtii waxa la yiri anaka marka hore waxaan ku fikiraynay in macna one man one vote laco xisbiyada dhannahay laakiin macnaasaf arintii macna waxay noqotay in la tanasulo arrimaha siyaasadeed ee danta guud ee ummadda iyo nabadgelyada waxay noqotay in dib loogu soo noqdo macna doorashadii dad baneed ayadoo aan Soomaalida badan ay jeclaysan arintaas laakiin haddana waxay noqotay in loo daneeyo ummadda Soomaaliyeed wixii xalka Soomaaliya ku jirto in maaragtay loo tanasulo madaxweynaha uu tanasulay ra-iisul wasaaraha howshaasina uu targeliyay haddana macna howshiisii dhaqsi ah oo lagu bilaabay macna 20 bishan maadaama uu ahaa ra-iisul wasaarihii macna oo hadda xilka hayay oo isla markaana howshiisa ahayd haddana mar labaad ay howshaani inuu targeliyo asaa hoggaanka oo maaragtay gacanta laga gashay iyo amniga macna doorashooyinka iyo xidhmada waa tahay doorashadii one vote one man oo madaxweynaha uu ku adkaystay muddo badan oo dalka ka dhici waysay haatan doorashada loo guuray oo doorashada xisbiyada ay codeynayaan shacab baarlamaanka ay codeynayaan dabcan sidee is leedahay ahaan arintan waxa weeye maaragtay markasta waxay noqonaysaa in loo soo noqdo ummadda Soomaaliyeed inay fikradooda cabir karaan ay qafkaad doona ay u dhiibi karaan doorashada madaxweynaha raba ay door karaan waa imanaysaa markaan haddii lagu adkaystay ay noqonayso si kasta badii la yeelay waxaan isku daynay in maaragtay arrintan shacabka looga cangeliyo inay ummadda Soomaaliyeed qadkay raali u yihiin inay doortaan hase yeeshee ay noqotay qasab noqotay inay noqoto arrintaas dib loogu soo celisho oo daruufa jira awgeeda doorashadii dad baneed
marka door haddii la soo celishay ma filayo in markaan inuu noqonayo wax oo conflict iskorimaad dhaca doono hadday dhacaan annaka markasta waxaan nahay maaragtay maxaana phase 2 haddii arrintaa la waayo annaka waxaan noqonaynaa haddaana xisbiyada in lama huraan annakana markeena kaalinteena ka ciyaarno waa tahay waxaad moodaa in arrimaha doorashooyinka xal laga gaaray balse magaalada muqdisho waxaa ku sugan ciidamo aan ka amar qaadan dowladda man isleeyahay weli ciidamada xagga iyo mucaaradka taabacsan weli kuma qanacsana siday dowladda wax ku wado arrintan waxa weeye maaragtay arrin maaragtay siyaasadeed waxaan qabaa macnaa militariga inuu macnaa loo kala qeybiyo qabiil iyo wax noocaasiyo adiga ma qabo waxaan qabaa inay militariga yihiin macnaa kaydka ummadda soomaaliyeed kuwa difaaca u taagan har iyo habeen howshoodana macnaa aanu marna oo laga maarmaynin waxaan qabaa inuu si nabadgelyo ah inaa lasku macnaa dadka hadda face to face oo wada istaagan macnaa dhufeysyo iskula jiraan macnaa ma qabo in magaalada oo lagu dagaal inuu ka dhaco waayo dagaal macnaa wiil baa ku dhasho macnaa wiila ku dhinto macnaa wiil kuma dhasho waa tahay goobaha ay qabsadeen ciidamada mucaaradka ee kasoo horjeeday dowladda dabcan waxaa ka barakacay shacab aada u fara badan oo qaarkood weli aan kusoo noqon guryahooda ma la isdhihi karaa haddii xaaladda saan ay ahaato mar walba waxaa la filan karaa in dagaal muqdisho uu ka dhaco haddii oo maaragtay arrimahan macnaa waxa waaye xasaasiyad waay waxa waaye maaragtay laba ciidan hadda ay ishor fadhiyaan anytime waxaa dhici karto xabad yar hadday kor u dhacdo kala shakin ayaa imaanaya in xabad laisku tuuray noqonaysaa marka waxaa fiican in lakala qaado oo macnaa oo ciidan kasto xeradii uu kasoo macnaa ka yimid in lagu celisho oo ciidanka magaalada dhan kulli laga wada saaro oo noqoto magaalada meel maaragtay nabdoon waa tahay adi ahaan maxaa is leedahay fikirkaaga mucaaradka ciidamadan ay horboodayaan ee ku sugan magaalada caasimada muqdisho ujeedkooda waxyaabaha sida gaarka ay u dhaliilayaan dabcan maadaama arrimihii doorashooyinka xal laga gaaray madaxweynahan uu tanaasul muujiyey runtii macnaa qof walbuu fikradu qabaa aniga isma leeyihi macnaa fikrad ayaa macnaa kala duwan marka waxaan qabaa marka maadaama uu yahay arrinta maamul goboleedyada iyo xukuumadda 17 September maadaama uu yahay bal waxay khurdar macnaa ay raadinayaan inay helaan macnaa kaalin ay kan macnaa qayb ay ugu qaataan waxaan u malaynayaa si ay ku korkortan ula galaan macnaa maamul goboleedyada iyo xukuumadda annagana waxaanuna xisbiyo waxaan qabnaa in maaragtay shirka la ballaariyo xisbiyadan macnaa ay ka mid noqdaan bulshada rayidkan qayb laga siiyo macnaa shirkaas uu noqdo shir ballaaran aysan u noqonin maamul goboleedyada keliya ay noqdaan mid macnaa soomaali ay macnaa qeybaha siyaasiyiinta oo ay qayb ka noqdaan anigu aaminsanahay haddaan nahay xisbiyada waxay aaminsiyiin in ay kaalin mugle inay ka qaataan macnaa wadahadalka soomaaliya xalka soomaaliya macnaa ayagoo ku hadlaya magaca shacabkooda in anagana kaalinteena adduunkana haddaan ka mid nahay xisbiyada waxaan jecelnahay inaan anaguna kaalin mugle aan ka qaadano halkaas siyaasiyiinta hadda musharaxiinta anigu waxaan ka mid ahay musharaxiinta madaxweynimada sanadkan diyaar u ahay inuu tartamo waxaan diyaar u nahay wax kasta oo maslaxadda ummadda soomaaliyeed meeshay ku jirto inaan u tanasulno waata hadda maxaa is leedahay waa xal waa laga gaari karaa ciidamadan ku sugan magaalada muqdisho si dib loogu celiyo xerooyinkooda of course Soomaali waxa waaye maaragtay waxay u baahan tahay macnaa labada wiil labada dhinac kala taagan waxaa dhici karta laba walaal yihiin iska aba marka inay qoral isku dhiyo ma haboono waxaa habboon oo maaragtay ku fiican tahay in macnaa wada hadal loo kala dhameeyo waayo magaalada haddii dagaal ka dhaco oo burbur dhaco macnaa adduunka o dhan waxaanu arkaa in caasimada ay ku quruxsaneen ammaankeeda waxay noqonaysaa meel laga barakacay meel laga guuro oo sabaaradii inay macnaa caasimada ay ka cabsadaan waxay noqonaysaa kalsoonidii soo noqotay 30 sano oo maanta maalin ka dambeyso ammaankeena caasimada si qurux badan noqonayso dhismi oo qurux badan noqonayo ammaankii oo aad iyo aad u fiicnaaday marka waxaad moodaa marka inaan dib u noqonino 30 sano ka hor
waayo Soomaaliya waa ogtahay cadawga dibadda macnaha faragelin dibadda jirto oo u baahan tahay macnaha taariikh ahaan Soomaaliya waxay waaye maarta si aad la socotiin waxay rabaan kala qaybiyo xukun wili siyaasadii oo maartay wadamada ajnabiga wili taagan tahay waxa ka go'an in Soomaaliya markasta kala qaybsanaadaan waxaan xasuustaa macnaha shirka oo lagu qaban jiray laba macnaha jaamacadood oo Ingiriisku yaalo oo 1995 waxay go'aamiyeen Soomaaliya in la kala qaybiyo oo macnaha gobol kala qaybiyo haddana gobol kasta oo si gaar ah waxa loogu dhigraa oo macnaha dawladda madax bannaan si Soomaaliya oo dhan oo mar labaad oo si shalay oo kale xiddigta shanta kees oo loo qaybiyo kale hadda shantii oo tan waxa loo baahay waxay rabaan siyaasad ahaan oo shisheeya wuxuu dabacsan yahay mid kasta si gaar ah inuu kala gooyo oo macnaha Soomaaliya xuduudka la kala xirto oo maartay maamul goboleedyada xuduudaha la kala xirto oo daaqa maartay xoolaha in maartay la kala mamnuuco oo la macnaha xoolahan waxa iska leh qabiil hebel iyo waxa iska leh macnaha maamulkaas halkaas uu soo gudbi karo iyo waxa noocaasi hadhowna way imaan doontaa waxaan ka baqayaa waxyaabo badan adduunka kasoo gudbay in anaka dib ugu noqono dadka ugu dambeeyay caalamka maadaama aan noqonay dal madax bannaan 1960kii oo horumar gaaray oo maartay dagaal oo maartay sokeey oo soo maray 30 sano ugu dambeeyay dagaal sokeey aad u burbur badan dhacay oo hadda maartay 2000 ilaa 2021 Soomaaliya dawladdu marxalad ay soo mareysay oo maartay marka dadka si fiican si waxay hore isku dhiib madaxweyne kasta madaxweynaha bedelay si dimuqraadiyada ay u socotay marka waxaan jecelahay in arintii hore maartay la soo celsho oo maartay oo Soomaaliya hore u socoto gadaal in loo soo noqoni waayo haddii caasimada burburto waxay noqonaysaa caasimada in laga guuro marka dad badan ku haminaya waxana ayaa aad iyo aad u daneynaya in Soomaaliya laga raro magaalada Muqdisho loo raro meel kale oo maartay anakana taas tan ugu jirto haddaanu reer Muqdisho reer Banaadir ma ogolni in caasimada wax ka dhacaan dagaal ka dhaco ama maartay faragelin oo maartay ku sameeyay magaalada madaxda Muqdisho waxa weeye maartay meel lagu faano oo maartay aan caasimadaha kale iskaga dhicino dhismeeda iyo quruxdeedana way soo noqotay in hadda iyo mar labaad in macna dagaal sokeey wadan kasto hal mar uu soo maraa mar labaad kuma noqdo marka Soomaaliya maadaama aqli ay shaqaysiiyeen oo maartay isku wada maadeen isfahameen dagaalka magaalada inuu ku qurux badneen oo maartay khasaare oo aan la soo qabsaneenin inuu macna cawaaqib xumo u keenayo oo maartay magaalada madaxda iyo ganacsigii iyo maartay noloshii inuu dib u dhac u imaanayo ciidamada dhexdooda waxaa jira kala shaki kalsoonidii ciidanka sidee dib loogu soo celin karaa wax kasta maartay kala shakin waxa way binaadamka dhan waa waswaas waa gali karaa laakiin waxa loo baahan yahay kalsooni la abuuro oo maartay ayakan isku kalsoonaadaan waayo Soomaaliya la wadiyaa nin walba la yaqaana qabiil horta qof walba qabiil ku dhashay macnaha barkii runta loo baxo oo hoos aan u dhaadhacno oo nin walba qabiil ku dhashay macnaha Soomaali ilaa kala dhigay macnaha dad oo different ah oo macnaha oo qoomiyad intaas qoomiyad Soomaali ku nooshahay marka tan waxa ka dhaxeeya diinta ka dhaxeeyo luqadda ka dhaxeyso waxa ka dhaxeyso dhaqanka ka dhaxeyso dhaqanka waa kala nooc wana qara macna dadna waxay leeyihiin macna dadka xeebaha way dadna waxa way dad xoololey way dadna waxa way beeraley way saddex sano u tiriya Soomaaliya marka dhamaantooda waxa ka dhaxeeya calankaas iyo qarannimada marka waxaan jecelahay in la ilaaliyo qof walba Soomaaliya oo waxa waajib ka saaran in معنا وتنزل أمة الصومالية كلا شكين أو هذا الجرن oo macna ciidankan hadii soo noqdo ama suriyo kale u yeelan abatan tan mar labaad hadii waxa dhacan ama qabiil noqona marka waxaan ka codsanayaa xukuumadda inay ay si oo maartay ilgaara ay ku fiiriso waayo ragan waxa dhici karta in la soo qalday macna siyaabo kale oo macna uu soo dagaal galeen marka waxaan ka codsanayaa in xukuumadda cabis guud sameyso waxa kasto maxabista wal xajina
haddii ajnabiyiin hataa waa la cafiyaa marka kuwan waa walaaleen waa soomaali waay markii in la cafiyo maaragtay mushaarkoodna dib loogu bilaabo oo maaragtay dad ay ka noqdaan dad oo maaragtay soomaali sharaf leh iyo karaam leh waayo haddii hadda lakala jibiyo hataa dhahde kuwan ciidanka kuma celinay waxay noqon karaan macna mucaarad marka waxa waaye intii mucaarad badan lahaa asxaa yaraato dadka waxaan ku talin lahaa in xerooyinkooda dib loogu celiyo oo maaragtay la waaniyo oo soomaalinimo iyo maaragtay iyo isjecel macnaha abo waxa ku weesay xoog lagu keeni karo lis walaashado oo ummadda soomaalida qarankaasna loo jeesto cadowga hadda oo anagana haysto Kenya iyo meelahaas oo maaragtay cadowga anaga haysto in loo jehiyo marka waxaan qabaa waxaan ku talinayaa ra'iisul wasaaraha inuu maaragtay qaato abis good ummadda ma kala maaranto waxa waaye maaragtay haddaad cadow ka dhigatid walaalka hadda cadow ka dhigatid cadow ku noqon haddaad soo dhawaysid walaal ku noqon marka waxaan kusoo gabagabeynayaa in arrintaaneti maaragtay ummadda soomaaliyeed macnaa in iska wada tanasulaan wixii qaldan dhacayna liscafiyo waa tahay daawadayaalkaasi waxau ahaa musharax madaxweyne muriidi golf oo ka hadlayay markaasi guddi dhawaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta gaarka loo leeyahay ka codsaday in ay ka qayb qaataan horumarka dalka madaxweyne farmaajo ayaa kulan uu kula qaatay aqalka madaxtooyada mas-uuliyiinta warbaahinada gaarka loo leeyahay ayaa waxuu kala hadlay doorka ay ka qaadan karaan dhismaha dalka iyo sidoo kale horumarka soomaaliya haddaba waa kan madaxweyne farmaajo oo arrimahaas ka hadlaya inaan caawa halkan ku kulanno oo si sareexa ah oo dhab ah aan su-aalo isu weydiino isugu xog waranno wixii aad qabtaan iyo waxa annaga naga hadlaysan aada soo bandhigtaan aada iyo aad ayaan runtii idinkaga mahad celinahay marka hore intaanan hadalkayga gudaha u gelin waxaan rabaa anoo magaceeda ku hadlaya inaan u hambaliyeeyo maanta oo ah maalintii saxaafadda May 3 saxaafadda xorta ah in insha Allah ay noo noqoto sanad wanaagsan sanadkan sanadkiisa nagu gaarsiiyo nabad hadduu eebba yiraahdo waxaan idin leeyahay hambaliyo marka xigta xaqiiqatan dal waxaan nahay soo kabanaya oo dowladnimadiisu ay curdun tahay hay-adaha kale oo private-ka ah iyo hay-adaha dowladdu kulli isku si iyay usoo kobcayaan oo runtii waxyaabo badan oo dhaliilo ah yaa dhankeena ka jira dowladda dhexdeedana ka jira waa xaqiiqa dowladda waxaa laga yaabaa dhexdeeda haddii ay tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha rayidkaba inay u baahan yihiin tababaro aada u badan in la siiyo training sida bulshada loola macaamilo loola dhaqmo khaasatan markay timaado media xorta ah waxay u baahan yihiin tababaro badan ayay u baahan yihiin sida inay tahay inay ixtiraamaan inay sida ay ula macaamilaan ama ula dhaqmaan ay ku jirto xushmo badan idinka naftigiina dhankiina curdun ayaa tihiin laakiin inaad ka taxadartaan inaad iska ilaalisaan waxaan dhab ahayn oo aan jirin inaad iska ilaalisaan maxaa yeelay adigu ma rabtid in lagaa been abuuro oo waxaadan ahayn lagaa sheegay ma rabtid marka qofka aad wax ka sheegaysaan naftigiisu xuquuq leeyahay sidaad idinka xuquuq leedihiin inkastoo saa sheegteen annaga intay aan nimid aynan wariyaasha aynan daba cararin qof alla qofku wax sheega inkastoo waxyaabaha inta badan aad sheegtaan haddii la fiiriyo ay xitaa geli karto dembiye ay geli karaa laakiin dhib ma laha waa isla tukubaynaa annagana waa koraynaa idinkana waa koraysaan wakti u baahan tahay inaad wax barataan annagana waktiaan u baahannahay dowladdu inay koobcdo wax barato labo bacdamaa dalkeenu uu curdun yahay dagaal sokeeyana aan ka soo baxnay dagaalka sokeeyana wixii keenay ee ahayd dad
runtii dadka Soomaaliyeed in la isku diray oo waxyaabaha annaga aan u liidano sensitive-ka aan ka nahay aan u jilicsannahay ama aan u dabacsannahay ay tahay qabyaaladda noo isticmaalay qabyaaladiina aan dalkeeni ku dumin iyay naga tagtay runtii dowladnimadeennii in qofkii uu ku noqdo dhaqankii miyiga marka uu hoos galo ama u magansado odaygiisii dhaqanka oo haddii uu haleeyo magaalo isagoo jooga Muqdisho ah yaa waxaa looga dacwoonayaa oday dhaqameed looga dacwoonayaa markaas hawshiis waxaa lagu xalinayaa sidii baadiyaha loo xalinayo haddii waa meeshii dowlad ahayd saldhigeedii xarunteedina ahayd because systemkii yaa isbedelay dowliga ahaa oo qofka lagula xisaabtamayo shakhsi ahaan oo hadduu xalleeyo qofkaasi uu isagu mas-uul ka yahay dembigiisa oo maxkamad lagu geenayo hadday tahay civil iyo hadday tahay criminal labadaba oo qofkaas aan loo raacanayn qof kale haddii uu leeyahay qof kale walaal iyo hadduu qaraabo leeyahay loo raacanayn marka waxaa la rabaa inaan lagu celin marka oo dadkii aanan kicin lagu sameyn iyo maxaa la yidhaahdaa la soo xasuusin wixii dhibka keenay oo dalkeena dumiyey oo adduunka naga reebay oo dowladnimadii noo diiday iyo systemkii oo qof walba oo wax garanaya ama dadka wax tari lahaa uu isaga tegay dalkii bacdamaa uusan ku helaynin cadaalad uusan ku helaynin muuqaalada marka aada muujinaysaan muuqaalada sax waxaa laga yaabaa xoogaa in telefishinka uu ku helayo rating fiican oo ay dadka xiiseeyaan oo la daawado laakiin rig horey gelaysaa ogaada imageka dalka iyayda naftiga wax u dhimaysa marka adigu intii aad qayb ka noqon lahayd dhismaha dalkaaga ama dowladnimadaada waxaad qayb ka tahay wax loo isticmaalo Soomaaliya inay tahay failed state dal burburay dad burburay meel aan lagu noolaan karin maxaan ku yiraahdaa meel aysan dowlad ka jiri karin marka waxaan idinkula dardaarmayaa inay qayb ka noqon wax alla wax imageka dalka ka hadlayna ayaan dhawid waxaa yimid oo kusoo dhuuntay meeshaan nin ruush ah oo maray meelaha ugu xun magaalada oo ka sameeyay documentary Soomaalidu runtii si fiican ay yeeleen waa ku kaceen waana ka xumaadeen sida ninkaas uu u haleeyay sumcadda iyo bilicda magaaladan iyo dalkeenaba Soomaalidu marka ninkaasi waxay ku diideen waa ajnabi dalkooda fool xumeeyay oo haleeyay marka in aan iska ilaalino wax alla wixii xumeyn kara imageka dalkeena inaan iska ilaalino dadaal badan waa haysaan waa loo baahan yahay dadka waa wacyi gelisaan oo runtii information badan waa bixisaan waxaan aaminsanahay hadda kulligii ninkaa iga xoog roon in dadku anymore aysan rabin wax aada u xun in la sheego oo dadka damiirkoodii uu soo noqonayo aysan dadku xiiseynaynin ama fake news ama negative images inaysan rabin oo marka aad sheegtaan wax wanaagsan ay dadka idin fiirsanayaan waa jiraan wax xun oo la sheego oo la xiiseeyo waa jiraan laakiin waa marka la personalize gareeyo laakiin markay tahay news episode ay tahay oo wax guud laga hadlayo oo negative ah dadku runtii ma jecla mas-uuliyadda waana wada saaranta mas-uuliyadda waana wada saaranta dowladda keliya ma aha inay ka shaqayso wanaagga dowladnimada idinku naftigiina haddii aad wax wanaagsan ka shaqaysaan dowladda waa ku dhaleeli kartaan maxay wax wanaagsan uga shaqayn weyde marka dowladda mas-uuliyadda saaran idinkana waa idin saaran tahay ma aha annaga inaan titleskii magacyadii haysano aan ku khasbannahay keliya ma aha idinku naftigiina titlesk waa haystaan laakiin titleskiinu waa title private ah mas-uuliyadda waana wada saaranta haddii aad aragto wax khaldan inaad investigation aad samayso oo aadan la boodin hal dhinac keliya aadan qaadan oo aad balanced ay wixii noqdaan oo aad dhegaysato dhanka kale waxa ay sheegaan waa aragtaa wax xun inay jirto waa qaadanaysaa wax xun laakiin waxaa ogaanaysa waxaad dabagelaysaa dhanka kale oo xumaatada sameynaya maxaa ku kalifa xumaatadan inay sameeyaan macnaha markays qofkii cadaalada u samaysa
wuxuu ogaanayaa qofkii marka inuusan khalfi ku noqon waxaa laga yaabaa inuu idiin sheego sabab jirta oo aadan ogeyn laakiin iyada naftigeeda ay muhiim tahay in la sheego marka in newska aad sheegaysaa naftigiisa uu ahaado news balanced ah oo uusan dhinacna u janjeerin waxaan aaminsanahay inuu jiro koboc maalin walba de waxbaa la baranayaa sida aad sheegteen oo aad qirteen in isbeddel badan oo ku dhacay xiriirka aad la leedihiin dowladda inay ka wanaagsan tahay ama sida laydinla macaamilo inay ka wanaagsan tahay sidii hore oo mar ka dambeysaba la arkaayo improvement horumar la arkaayo waa dhab weeye hal mar dee wax walba ma dhici karaan in la sameeyo maalin walba waxbaa laga baranayaa marka waxaan aan leeyahay annagana aan dadaalno dowlad ahaan oo waa kobceynaa tartiib yaan u tallaabsanaynaa meesha aan rabno intay rabta hanagu qaadato idinkuna naftigiina dadaala waxa aan ka wada shaqeynayno runtii wax kala fog ma aha waxaan ka shaqeynayno waxay tahay in dalkan istaago in dowladnimadeena ay xoogeysato way waxaan ka wada shaqeynayno taas wey waxaa maalin walbaba se hadda aad sheegteen ee u yaraanayso geerida ama dhimashada la beegsanayo wariyaasha inta aan dalka u nabad noqonayo wariyaasha riskigooda waa yaraanaya haddii dalku uu galo chaos ama dhibaato u galo waa khasab waa la beegsanaya wariyaasha waa khasab maxaa yeele environmentigii yaa wuxuu yahay environment aydan ku shaqeyn karin ama environment aan xor noqonayn aan idiin qiro annaga waxaan aaminsannahay ayna tahay in miidiyuhu ama saxaafaddu ay xor noqdaan 100%. intaas keliya maaha inaan saaxiib la nahay waxaa ku jira danta dadkeena ku jira waxaad arkaysaa hadda Kenya oo kale markii aan badda hawlaheeda aan isku haynay waa idaacado iyo newspapers oo xor ah oo aan dowladda shaqo ku lahayn inta badan waxaad moodaaba inay sheegayaan waxa dowladda afkeeda dowladda inay ku hadlayaan annaga maxaan sameynaa marka iska daa inaan dowladda aan difaacno waxoodaan sheegnaa ciidamadoo kale siyaasad maaha iyada naftigeeda waa wax dalku leeyahay oo la wada leeyahay ciidanka qalabka sida dhididkooda iyo dhiigooda iyo dhimashadooda halkan ku fadhinaa oo maalin walbaba hadduusan dhiban u dhaawacmaayo haddaysan iyaga ahayn halkaan maanan fadhin lahayn marka in aan ka shaqeyno ciidankan inuu yahay ciidan qaran oo aan marna la siyaasadeynin marka macnaheedu waxay tahay waxyaaba waxaa jira aydan ka fiirin keliya hal idin fiirsado ama aydan ka fiirin waa dad siyaasad isku diidan aydan ka fiirin oo aad ka fiirisaan wax dalka oo dhan u dhaxeeya oo la wada leeyahay iyo wax qof gaar u ah dowladnimadu waa la wada leeyahay in la wada ilaashado weeye waxay ka shaqeynayso hadday tahay arrimaha dibadda waa la wada leeyahay waxay ka shaqeynayso hadday tahay ciidanka qalabka sida waa wax la wada leeyahay haddii aad aragtaan corruption iyo wax foolxun ay dowladda sameynayso waa loo baahan yahay in la sheego iyada naftigeeda adigoo siinaya fursad meesha wax ka halaysan yihiin ya inaad dhankooda aad ka hesho marka annagu waxaan aaminsanahay ama aan aaminsanahay dowladdan inay tahay dowlad friendly la ah saxaafadda haddaad rabtaan dhib ma laha dhanka mucaaradka waa jiri kartaan oo haddee adduunka waaba ka jiraaba xisbiyadu idaacadaha tviyadu waa waxa wey waa qaarna waxay jiraan xisbi way jiraan qaarna xisbi kale taageeraan waa dhib ma laha taas waa siyaasad oo ah dowladdu maxay dhaqaalaha ka qabatay
dowladdu maxay ka qabatay arrimaha caafimaadka markaas joogto oo la sheegayo waa wax feer ah waay laakiin wax markay ay tahay wax naga wada dhexeeya siyaasad ma ah xisbina ma ah waa wax u baahan inaan ilaashano haddii kale dee wixii oo dhan baa dumi karaa waxaad ka hadashaan markaas meesha ma yaallo marka idinku naftigiina inaad madax inaad ku haysaan dowladda idinkaa iska leh dowladda cadow idin ma aha haddee wax khaladana baa sheegi kartaan waa feer idinkoo siinayo fursad sababtay u khalad inaad weydiisaan marka waxaan rajeynayaa inaan su-aalihiin idinkaga jawaabay aan idinla wadaagay ama idinla qaybsaday fursaddan munaasabadan may 3deeda oo dee maalinta ah saxaafadda insha allah sidaan aan isugu badanno hadba marka wixii jira oo xaaladaha jirana aan iska wareysano waa tahay daawadayaal muuqaalkaasi waxa uu ahaa markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo markaasi kala hadlay warbaahinta gaarka ah doorka markaasi ay ka qaadan karaan horumarka dalka sarkaalka loo haysto dilka George Floyd ayaa codsaday maxkamadeyn cusub Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo u xiran dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah ayaa talaadadii waxa markaasi ay shalay garsoore ku sugan Minneapolis u weydiistay maxkamadeyn cusub 2 toddobaad kadib markii lagu helay inuu dilay George Floyd. Eric Nelson oo ah qareenka Chauvin ayaa shalay u gudbiyay codsigii dib u furidda dacwadda kadintigiisa taas oo u gudbiyay garsoore Peter Cahill oo ahaa xaakim ka howlgala maxkamadda heer degmo ah. garyaqaan Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uusan helin xukun cadaalad ah isagoo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadda ay dhaceen qaladaad ay ka mid ahaayeen arrimo ugu yaray dhaqan xumo ay ku kaceen dacwad oogayaasha iyo guddiga xeerbeegtida. wuxuu intaasi ku daray in dhacdada qalad dhanka sharciga ah uu jiray sidaas daraadeedna ay go-aankii ay gaareen xeerbeegtida ay tahay mid baalmarsan sharciga. 20kii bishii Abriil ayaa guddiga ka koobnaa 12 xubnood ay dambi ku heleen Chauvin oo 45 jir cadaan ah. dambigaasi oo ahaa inuu si ula kac ah iyo si aan ula kac ahaynba u dilay George Floyd oo ahaa nin madow ah, waxaana dilkaasi uu gilgilay dalka Mareykanka iyadoo dadka madowga ah ay dhigeen rabshado ay uga soo horjeedaan dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah. mahdow qaybihii dambe ee barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan ayaan isla soo gaarnay. qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka haddii aan daawadayaashu soo qabto ergeyga cusub ee Mareykanka uu usoo magacaabay Geeska Afrika ayaa socdaal ku maraya gobolka. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u diray Geeska Afrika ergeyga gaarka ah si loo dejiyo xiisada gobolka ka taagan. qoraal uu soo saaray xogayaha Blinken ayuu ku sheegay in Fedleman uu booqan doono dalalka Masar, Eritrea, Ethiopia iyo Sudan tan iyo 13 bishan May. ergeyga gaarka ah ayaa la kulmi doona mas'uuliyiinta dowladaha wadamadan qaramada midoobay iyo waliba midowga Afrika. sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa saamileyda siyaasadeed ee dalalkan iyo kooxaha arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya. qoraalkan uu soo saaray xogayaha Blinken ayaa lagu sheegay in safarka ay hoosta ka xariiqayso sida maamulka Mareykanka ay uga go'an tahay inay hogaamiyaan dadaallada diblomaasiyadeed oo wax looga qabanayo xasaradaha isku xiran ee siyaasadda amniga iyo bini'aadanimada ee ka taagan Geeska Afrika. waxaana lagu xusay qoraalkan ergeygan gaarka ah inuu xiriirin doono siyaasadda Mareykanka ee gobolka iyo si loo gaaro yoolkaasi. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Ethiopia inay soo afjarto colaadda gobolka Tigray oo socotay muddo 6 bilood ah, waxaana kaleeto saraakiisha Mareykanka oo ugu baaqeen Eritrea inay ciidamadeeda kala baxdo gobolkaasi. guud ahaan daawadayaal barnaamijka Soomaaliya subax wanaagsan oo aad ka daawanayseen TV-ga Shabeelle waa nageynta.